بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idiin soo gudbinayaa qiso cajiib ah. inta aanan gudagelin fadlan subscribe saar channelka si ay ku soo garan muuqaaladan soo geliyo gambalaalkana daawo si aad u noqoto qofka ugu horeeya daawada. waxaa jirtay gabar aad iyo aad u qurux badan, indhihii mar arkaana aysan ka jeesanaynin isla markaana ay jeclaanayaan. waxaa arkay wiil dhalinyaro ah. markii uu arkay gabadhaasi aad buu u jeclaaday. waxa uuna u yimid aabihii. waxa uu ku yiri, aabo, gabar ayaan maanta arkay, aad ayayna u qurux badnayd. run ahaantii aabo, waan jeclaaday gabadhaasi, waxaan doonayaa in aad ii doonto. aabihii waxa uu ku farxay hadalkii wiilkiisa. waxa uuna ku yidhi, waan kuu doonayaa. waxaa isa soo raacay wiilkii aabihii, waxayna u yimaadeen gabadhii. markii uu arkay aabihii gabadha wiilkiisa uu doonayo, aad ay u qurux badnayd, indhihiisana way soo jiiteen. wiilkiisii ayuu ku jeestay. waxa uuna ku yidhi, aabo, uma qalantid gabadhaani, waxaa tahay wiil yar. waxaa u qalma oo loogu talagalay nin ka weyn oo waaye arag ah sideeda oo kale. run ahaantii wiilkii aabbihiis ayuu ku jeestay. waxa uuna ku yidhi, aabo, waxaan isku soo raacnay in aad gabadhaani iisoo doonto. maxay tahay hadallada aad markaasi ku hadlayso? dood ayaana dhex martay wiilkii aabbihii. waxayna aadeen saldhigga si ay halkaasi ugu soo kala baxaan. markii ay yimaadeen saldhigga, waxay u soo bandhigeen askariga meesha joogay. waxa uu yidhi askarigii, bal marka hore ii keena gabadha si aan idin kala saaro. waxaa la keenay gabadhii. askarigii markii uu arkay gabadhii quruxdeeda, waa uu ka helay isaga naftigiisa. waxa uuna ku yidhi, labadiinaba uma qalantiin gabadhaani. waxaa u qalma nin naftiisa u huray dalkiisa, una shaqaynaya ummaddiisa dartoodna u dhimanaya, waana aniga. doodii ayaa waxa ay naqatay mid 3 geesood ah. arrintii ayaana aad looga dooday. kadibna waxay iskula tageen qaadigii maxkamadda, waxaana loo bandhigay arrintoodii. waxauna yidhi qaadigii maxkamadda, ii keena gabadha. isla markiiba waxaa la keenay gabadhii. qaadigii markii uu arkay gabadhii quruxdeeda, isagana aad ayuu u jeclaaday. waxa uuna ku yidhi, intiinuba uma qalantiin gabadhaani. waxaa u qalma nin xigmad yaqaan ah oo xaakim ah, dadkana shareecada ku kala saara sidayda oo kale. arrintii waa ay xumaatay. waxaa badatay doodii iyo weliba isqabqabsigii. waxaa la iskula tegay madaxweynihii waddanka xukumayay si uu arrinta xal ugu keeno. madaxweynihii markii uu dhegaystay doodoodii, waxa uu ku yidhi, bal marka hore ii keena gabadha si aan u weydiiyo cidda ayada ay doonayso. waxaa la keenay gabadhii. markii uu arkay quruxdeeda ayaa soo jiidatay, durbadiina waa uu jeclaaday. waxa uuna ku yidhi, kulligiin uma qalantiin gabadhaani, ee waxaa u qalma nin madaxweyne ah oo talada waddanka gacanta ku haya sidayda oo kale. doodii iyo isqabqabsigii ayaa sii ballaartay. markuu xaalka halkaasi marayo, gabadhii ayaa hadashay. waxayna tidhi, aniga ayaa xal idiin keenayo, waxaana xalkaasi uu yahay, anigu waan ordayaa, idinkuna waad iga soo daba ordaysaan. waxaana i guursanaya oo i hantinaya ninkii isoo qabta. go'aankii ay soo jeedisay gabadha ayaa laysku raacay, wayna wada oggolaadeen. nimankii 5 ahaa way wada xeeteen, waxaana qof weliba uu u xeetay sidii isaga uu u soo horqaban lahaa si gabadhaasi quruxda badan uu u hantiyo amaba uu u guursado. gabadhii ayaa carartay. 5tii ninna way ka daba carareen. qof welibana waxa uu ku dadaalayay inuu isaga soo horqabto. hase ahaatee nasiib xumo, 5toodiba waxay ku dhaceen god aad u dheer. gabadhii ayaa dib u soo eegtay. waxayna gadaasheeda ka weysay wax soo eryanaya. kadibna way ku soo laabatay oo waxa ay soo kor istaagtay godkii, iyadoo la hadashay nimankii 5 ahaa ee godka ku jiray. waxayna ku tidhi, miyaad i taqaanaan aniga oo sidaani oo idil aad iga daba ordaysaan? waxay ku yidhaahdeen maya. waxay tidhi, anigu waxaan ahay adduunyo, waan qurux badanahay. qof welibana waxa uu jecel yahay inuu i helo amaba uu i hantiyo. saqiirkiina, kabiirkiina, madaxdiina, haweenkiina, dhammaan waxaa tihiin kuwa i doonaya in ay i helaan. laakiin nasiib xumo, ma jiro qof i helaya. qofkii isku daya inuu i helana waa uu dhimanayaa. dhammaantiin idinka oo sidaa iga daba cararaya ayaa wakhtigiinuu dhammaanayaa. sidaasna waxaa ku gelaysaan qabrigiina. qisada ayaa intaasi ku eg. waa maxay qisada? waxyaabaha laga dheehan karo iyo xigmadda markaasi ku jirta. run ahaantii adduunyada aad bay u qurux badan tahay, dadkuna way wada jecel yihiin, waana mid laga wada dhimanayo oo ma jiro ruux ku waaraya adduunyadan. sidaa darteed ha israacsiinin adduunyada. waxaa wanaagsan mar weliba in aad ka fikirto aakhiradaada, maxaa yeelay aakhiro ayaa ka sii qurux badan oo aanan laga dhimanaynin. waa haddii allah subxaanahu wa tacaala uu kula doono wanaag iyo raxmadiisa. waad ku mahadsan tahay daawashada fideogan. haddii aad ku cusubtahay janalka, fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaaladan soo geliyo. gambaleelkana taabo si aad u noqoto qofka ugu horeeya daawada. sheer dheh si aad ula wadaagta asxaabtaada. dhiirigelinta commentigaagana waa inoo muhiim.
mahadsanid.